بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي واسماعيل موسى الكديقة داوانيسا أنا وبرتان كل هي مريكتا يوتيوب كاسماعيل سيد channel فضل هداد ku cusub tahay channel ku soo dhawow subscribe tana u furo kambalelkana saar commentiga iyo like tuguna xaqiina weeye waxaan soo gudbin doonaa maanta jawaabaha barnaamijkii aynu u bixinay maxaa khaldan maxaa isbedelay oo su'aalo aynu hore iskugu soo weydiinay su'aalahaas oo idinkaan soo diray aniguna aan waxaan qabo iyo jawaabihiin hadhow markaan ururiyo bal waxa ka soo baxaa sidoo xalku u eegaan karo iyo meeshay sarta ka qoranteedan ogaano aynu isla eegno dabeetana ilaahay wuxuu inaga waafajiyay kan idhaahno ayaan halkan ugu soo gudbin doonaa wixii falaqayn iyo faahfaahininta ka dheer iyo bal wuxuu daaran yahay in dhowr barnaamij baynu soo gudbino su'aalaha maalinba mid baynu isla taageenay bal kan hadda maanta aynu isla taagi doono waxaynu faahfaahinaya mudanahan oo xoogay inaga durugsan soo dhow mudane assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad baad mahadsan tahay adiga iyo dhammaanba daawadayaasha ina daawanaya meel kasta inaga daawanaya ka joogan daafaha adduunka adiga ayaa mudan bal maanta waxaad inoo hayso barnaamijkaad inoo falaqaynayso ee dadkan aad u gudbin lahayd maanta ku daawanaya ama ku dhageysanaya barnaamijkaasi muxuu yahay kulli barnaamijkeenan maanta wuxuu daaranaan doonaa ama uu ku saabsanaan doonaa dhaqankii hore ee hawlwadaaga sidii ay dadkeenii hore xoolo dhaqatada ahaa hawsha u kala lahaayeen iyo say u noolaayeen iyo nolosha siday u dhadhaminayeen iyo say u arkayeen iyo maalmaanta sida ay tahay aad moodo in wax badan iska bedeleen iyadoo de ay xaqiiqana tahay in wax iska bedeleen oo dadkii aanu ahayn waqtiga aanu ahayn xilliga aanu ahayn maxay ahayd nolosha wax badan iska bedeleen waxaan bal isku daydaa mudane hadiye jeeraale markaad sharaxayso in bal eriye la fahmi karo oo dhaqankii hore la isticmaali jiray iyo maanta isbarbar dhigi karo isku soo dhaweyn kara oo aanay noqonin waxooga ereyey rakagan dadkan daawanaya بديدود waxay u badan yihiin dad aanay eriyado inta badan oo saafnayn intaan aan ku yara baraarujin lahaa waynu isku dayi doonaa haduu ilaahay idamkeeda leeyahay in aynu wixii aan isnidhaahno macna gaara ay u baahan yihiin ama in si gaar ah loo faahfaahiyo inuu faahfaahino aynu sirad u taagno hadii aynu ka soo bilowno asalka halka ugu hooseysa kulli qoys walba hooye iyo aabbo ayuu soo unkamaa sida aynu la wada socono hadii aynu sida barnaamijka hore ku yara ishaarnay ka bilowno hooyadu waxay ahayd masterka isha ugu weyn factorka cunsurka shay kasta oo la qabanayo oo reerkaas u baahan yahay uu ka soo fulo isaga ayuu ahaa ubadka ayaa ugu horeeyay oo ubadka barbaarintooda korintooda dhaqaalintooda xanaanintooda dhan kasta la iska taagaba iyadoo oo si guud ubadka tarbiyadooda ay qaabilsanayd khaasatan siday rag iyo dumar hadhow markay waaweynaadaan hawsha kala sugaysa mid walba meesha booska uu leeyahay si khaas oo majaalka uu leeyahay aan hadhow looga soo cabanin tusi jirtay waxa kaga haboon iyo waxa sugaya ilmuhu heer waxay hooyadu gaadhay in ilmuhu kiyo dhashay oo aan hadal fahmeyn oo aan ishaar fahmeyn oo aan wax kale garanaynin inay hadana hooyadii u heesto ma weeliso heesaha ay ugu heesaysan ay yihiin heeso ama eriyo ama kelmado xambaarsan in macnayaal waaweyn oo hadii la isla taaga عشرة فرا بدن إن لقد دياري وباهن أو سيجار لو إيجو iyadoo waxaas oo dhan hooyadu ka ahayd ilmaha yar waxa ugu horeeyay uu dhigihiisa ku maqlay ee ku soo dhacaya ee hadhowna uu ku guntan doono maskaxiisa yar xaashida warqada ah inay ahaadaan wax mustaqbalkiisa anfaca ay mid walba gaarkiisa hawsha uu leeyahay u soo marin jirtay hees hawleedka ay ku qabanayso ku aaminsanayso ku habayso dhexdiida hadhow markay yar koraano mid walba hawsha uu ka qabanayo guriga kii maqash loo dirayay kii arig loo dirayay kii wixii ariga xanaanintiisa ee guriga uu baahnaa loo dirayay mid walba iyada ayaa ahayd qofka kala habta ee kala hagaajisa hadii tahay xagga guri dhisidii guriga la dhisayo qaybihiisa kala duwana nooc kasta uu yahayba hawlaha inta leeg ay ku foogneed oo de waxay ahayd aan karnaa maanta hadii aynu soo dhaweyno hooyadu waxay ahayd wasiirka arrimaha gudaha oo dhanba aabuhuna hadii si kala dhigno isaguna wuxuu ahaa madaxweynaha reerka مع وزير خارجي ولا سقوط طريقه هذا من تيم بلا بوس مسك عياري oo mas'uuliyadda guud aabaha ay hayay oo reerka wixii tala iyo taween ah wixii soo jeedin ah wixii hadii la raraayo haduu guuraayo haduu wax soo iibsanayo hadii dhaan iyo aruurin iyo xoolo la ooman oo la ontirayo tahay hadii meel aabaara inta laga guuraayo keenan dheer la gelayo ilaa keenan kale sii gelayo isaga ay inta hormuud ahaa oo dib booska laga xisaabtamayay hadhow caruurtii marka ay yara koraanay waxoogay leekaadaan waxa jiray mid walba Messi gaara Messi waxaan uga jeednaa marka qayb gaaro oo ku soo hagaagaysa isaga ayuu lahaa oo loo diro
haddii ka bilowno inantu markay xoogay roonaato waxay ka bilaabaysaa marka hore dee maqashii soo ururintoodii maqashii maxay toole la kala baro naylihii iyo waxarihii haddaynu kala qaadno dadka qaar ayaa waxay yidhaahdaanba ari cadka iyo ariga qoorta madow lehe aan waxaan leeyahay dee sax ay tahay marka hore waa ari kadibna dee waa riyo iyo ido naylo iyo waxaro in maxay toole halkaas looga bilaabayay maqashii qaabka ariga loogu dhigaayo qaabka maxay toole loo foofinayo qaabka loo daryeelayo dhammaanba waxa ku sii xigay hadhow markay yaro kobocdo maalintii sida xoolaha loo maalayay ariga riyaha idaha laftooda la maalaa si gaar ah loo maalaa tababar gaar ah leeyihiin mareegta maqasha sida loogu guraayo oo maxay toole si khaas ah lagu xidhayo oo qaar ay jiraan dee maxay toole si gaar ah u baahan loo eego waxaas oo dhan baa la qabatiin jiray oo la bari jiray oo ahayd hawl tareerin badan u baahan waqti fara badan si hadhow anfacdo qofkan dee oo aanay isagoo hadduu qayb ka boodo space ba banaanaanayo hadhow meeshan oo haddii hawlihii ay qaar kala yara daataan ilmihii hadhow la qabsan maayo xagga inanka kale haddaynu nimaadno isaga laftiisu markuu xoogay marka hore maqasha isaga laftiisa uu ku barbaaro kadib ariga ku xigay ariga markuu raaco ama kala raaco riye ida loo kala sooco ama isagoo isku jiro wada dhan hala wada raaco dhammaantiidba howl u taallay ahayd ariga wadeecada laga ilaalinayo haday dawca tahay iyo wixii kale ee wadeeco hoos timaado oo dhan wixii kale dee dugaag nooc doonaba ahaadee xoolaha cunaya inuu ka ilaaliyo oo mid walba si gaara looga jiro oo mid walba si gaara loo ilaaliyo ay jirto barnaamijyo insha Allah ka diyaarin doonaa xagga dhaqanka iyo dhammaan wixii ku saabsan markaan soo koobaynaa si aan casharkooy inooga dheeraanin ama aanay anjiraduhu dheeraanin dadkuna hadii jeeraale kalsho badan ma hayaan kadibna wuxuu u gudbi jiray inuu jaranjarta yara dhaafo oo inanku uu maxay ahayd geela tabadhow u noqdo ama mid geela gacan yare ah oo noqdo kadibna heer gaadho ilaa uu geeliisaga lagu aamino foofkiisii waraabintiisii ka warhayntiisii oodidiisii dhan kastaba majaalka caynkaasa ayuu lahaa oo lagala xisaabtamayay deeto qof waliba markuu majaalka uu leeyahay wax ka khaldama inuu la toostoosin jiray maanta halka wax xasaasa ka noqday hebelow iyo maalinta ma nagu soo noqonin baa loonin jiray deeto qofkii isagoo tababar qaatay tareerin oo dhisan oo dhan kasta ka dhisan ayaa uu sidaa ku weynaan jiray ku reergeli jiray reerka uu guursado iyo inantaasi reerka ay u dhaxdo hadhowna sidii iyada lagu soo barbaariyey ayuunbay reerkaa ku dhaqan jireen iyaguna ubadkooda kusii barbaarin jireen markaasay ku noolaan jireen nolol istareexa nolol wanaagsan iyadoo nolosha miyiga aynu dhahno waa nolol qallafsan waa nolol adag waa duruufeeda waa iska wadataa meel kastaaba dhaqankeeda leh maanta tan ay joogna iyada lafteeda kala duwan oo qaarba duruuf kale ku nool yihiin iyagoo nolosha noocaasa ku noolaadan waxay ahaayeen qoys barwaaqo ah qoys bashash iyo barwaaqo nimco ku nool khilaafkoodu yar yahay dhacdhacoodu yar yahay qof la xanto oo la yiraahdo qofkaas waa doqon oo waxay ka soo bixi hawshiisa ay yar tahay oo qofka meesigiisa loo diray hawsha uu ku kooban yahay ku foogan yahay ay wax ka sii noqdaan ay ahayd maalintaasi dab madow inuu reerka gabal madow u dumay ama qofkaasi maalinta uu ceeb adduunka uga baxay hawlaha noocaasa ayuu lahaan jiray maanta hadaba maxaa isbedelay maanta dadka reer magaal bay badan yihiin dhammaantood baadeenan odhaninba intooda badan reer magaal haddaba haddaan kuu nimaadno adiga hawlahaagu maxay yihiin isla halkii haddaynu ka soo qaadno kii hore ka soo qaadnay reer waliba ay qoys walba cid waxay ka unkantaa waa hooyo iyo aabo hooyadu waa hooyadii aabihina waa aabihiin hawshin baa sira bedeshay maxaa waaye hadaba isbedelay sidee wax noqdeen xagee wax ka waalayeen bal hadda aynu eegno maanta hooyadii iyo aabihii sidaan sheegnay uu reer ku unkamaya kadibna qoyska halkii caruur wad ilaahay kala siiyo sidii uu ku tarmaya ayuu ku noqonayaa reer kamida reerka dhaqan halkii kii hore lagaga barbaarinayay markuu ilmuhu yaraa isaga ilmihiiba hadalkii iyo kala saarin iyo codkii iyo wuxuu garanaya aanay jirin heesaha maaweelada xambaarsan murtiyaha faraha badan leh xigmadaha kala duwan ee la islaa ilmaha yar bal waxa ugu horeeyay niyadiisan uu ku duubay maskaxdiisa ha ahaadaan wax hadhow anfaca ayaa ka imanka ilmaha yar markuu dhasho halkii heesaha iyo wax looga maaweelinayay kan wax laga yaabo in heesa laga dul shido heesa caadi oo muusi laho maxay wax kala halkii markii hore heesa hawleedada loogu maaweelinayay qofkan yare hooyada ugu luuqeynaysa hooyada qaarisay marba qaare marba dhac ugu rogeysay ay ku maaweelinaysay maanta waxa laga yahay hees iyo muusi laga dul siraado in TV loo siraado in moolada jaajarka inta loo geliyo la yiraahdo halka soo yaala agtiisa halka maanta oo dhan markuu xoogay in la yara koro hadhow markuu roolaadano in filmo loo saaro filimkaas oo ilmihi yara maanta oo dhan hadhow wuxuu noqonayaa ilmihi yara wuxuu noqonayaa ka soo baxaya filim kartoon kala meesha uu saartay ilmihi yara filim kartoon yar soconi baad igan kugu noqonayaa boos nolosha uu kaga leeyahay maad u sheegin boos nolosha oo hadhow ku soo hagaagaysa markuu weynaado maad u sheegin wax hawl sugaysa qofkaas caynku eegan doono mustaqbalkiisu wixii oo dhan waxaad u habaysay ma jiraan marka ma adiga ayaha leh nolosha caynkan u eeg inuu ilmahaaga noolaado
oo hadhow aad u canaanato mise ilmaha inaad hadhow canaanato aad tidhaahdo ilmahayga waa dujir noqday ilmahayga rabaa wareegsanayuun inantiida loon taaglahay magaalada ayay gashay maxaasoo dhan ma adiga ayaa iskugu wacan mise waxa weeyaan wax ilmahan uu galabsaday xaqiiqatan waxaan odhan karnaa waxaad adigu ilmahan dhaxal siisay ilmihii isla markuu ku koro hadhow iskuul baa la geeyey isagoo xoogay jiray isagoo aan dhaqan kale aqoonin isagoo aan hawl kale aqoonin isagaa maskaxiisa waxba ku duubnayn kadib ardaydaas lagu sii dhex taayey malaayiin arday oo nooca isagu yahay ugu soo koray ayaa lagu sii dhex taayey dabeetana maxay isla qasteen maxay iskala faayeen maxay isku kordhiyeen maxay kala dhaxleen wixii uu kana la soo barbaaru kana la soo barbaaru meel iskula yimaadi dabeetana labadiiba wixii uu noqdeenuun dee jaantaar rogan wata maanta labaabayo meel kasta ilmaha yar oo taag lahay maxaa ka soo baxay ilma yar oo hooyadii candhuufaynayay ilma yar oo aabihii feer u duubanayay ilma yar oo aabihii u kari la'yahay waxaanu aragnay noocay wada eg yihiin aad ka argagaxsan markaad aragto oranayso talo waxaan imaadad ahayn ayaa ka soo baxay xalku haddaba muxuu yahay xalka haddii nuu soo degna isna idhaahno bal hadda wax jafjafa noloshii hore ee qaabka u habaysnayd ee tartiibta lahayd ee jaranjarooyinka laga baxayeen soo tirnay lahayd maanta badideedu waa laga soo gubid magaaleynu joogna waxbaynu baranaa tacliim baynu leenahay baynu idhahnay buug iyo qalin baynu qaadanay birsooraynu dhiganay digtooraynu qorannay shuyuukh baynu noqonnay arrinkeenu arrinkii hore dhan uu ka duway nolol magaalo ayaynu joogna oo aan odhan karno waa nimco iyo rays iyo naqiido oo noloshii adkeydee rafka ahayd haddaynu kasoo qaadnoba inay raf ahayd mabay ahayn baan u aaminsanayahay inaynu bal maanta eegno halkaynu joogno iyo sidii wax naga yihiin ilmahu marka uu dhasho halka koobaad ee sartu ka qurmaysa waxa weeyaan waxaanu helihaynin ilmahani mas-uuliyaddii hooyanimo hooyadu mas-uuliyaddii ay iska saaraysay ubadkeeda ayaanay helihaynin sababtuna waxa ay tahay asalkeeda ugu weyn waa xagga aaba ayay ka imanaysaa oo aabbihii ayaa hawshii uu lahaa ee ahayd inuu ilmihiisa iyo gabadhiisa iyo xaaskiisa dhammaanba dee dadkiisa inuu isagu mas-uuliyaddooda qaado oo haddii tahay waxay cunayeen waxay cabayaan iyo waxay kiraysanayeen waxay leedhsanayeen waxay dabsanayeen biil oo dhan wax kastaba dee wixii magaalo looga baahnaayo dhan inuu gabay waalidiin badan aabbayaal badan ayaa gabashiyey hooyadeed marka waxay samaynaysaa dee inay dhaqaaqdo ubadkeeda istiraado wax u qabso nafteeda istiraado dee maxay badbaadi helaag ka badbaadi dee hooyadii iyadoo xaamilo ay socotay orodo shaqaysato fadhiga ka kacdo sidaa ku dhasho ilmihii yaraa intays arkaan ba iska yaraato lagaba yaabo in jaariyad ama shaqaale loo qabto marna sii tuurto marna soo tuurto naxariistii hooyanimo ayuu waayayaa hooyada dhabteedii buu waayayaa laga yaabaa 24 saacadood maalihii habeen iska soo wareegay waxay hooyadu aragtaa isku kooban yahay in yaroo habeenkii kamid uu hurdo in yaroo maalintii kamid uu aragtaba ilmihii rafka ay loorkaas ku koraya kadibna saas uu ku noqonaya ilmahan aragna cankii uu eegyahay mas'uuliyaddii hooyanimo oo la soo celiyo xalka koobaad mas'uuliyaddii hooyanimo oo la soo celiyo hooyadii markay gurigii aabaheed ka timaado inantii ay la guursaday ay guriga xaajiga ama ninka guursaday timaado way mas'uuliyadda qaado iyadoo mas'uuliyadda guriga qaado hadhow markuu wad meesha yimaadana ubadka tarbiyintiisii waxbariddiisii hagaajintiisii toosintiisii wiil iyo gabadh walba majaalka uu noloshan ku leeyahay sugaysa mustaqbalkiisa ay ku toosisay ku habtay u noqoto qudwo iyo maxay toolay ku dayasho wanaagsan iyo tusaale muuqda aabuhuna hawshii guud ee dhan ay waxay u baahneed oo dhan uu ka kafeeyo laakiin hadduu aabuhu kafeyn waayo dee hooyada inay ka dhaqaajiso markaa xaq bay u leedahay ubadkeedii waxay cunaan iyo waxay ku hagar baxda ay u doonato kaas waa xalka koobaad halka labaad ee lagu hagaajin karaa hooyadani waxay ku soo kortay nolosha aynu sheegnay oo mabay aragba ilmahan sida loo barbaarinayo aynu sheegin in doonayno hooyada lafteedii ayaa u baahan in iyadii hadda imaka dub loo jafjafo oo dee noloshii ku soo kortay caynka u egeyd wax laga bedelo dee taansaa la odhanaya taasina waa qof maanta weyn maaha qof yaroo maanta la toostoosinayo oo uli dee laleeyahay xaggan u du iyo xaggan ku qalooci caqliyadan iyo kaskeedan imaanka ma isticmaalaysa adduunkan waxa ka dhacayo umbu qofkani bal eegaya dhan kasta maxaa wanaagsan se maxaa habboon qof kala garanaya ilmahan marka waxa loo toostoosinayay ee loo lahaa xaggan u baydh halkan mar halkan way khaldan tahay halkan kasoo joog kan ha odhanin sidaa ha u dhaqmin sidaa ha u hadlin ka kale saa la hadli qof waxa aan maskaxiisa wax ku garanayn maanta hooyadii waa qof maskaxii iyo miirkeeda imaanka wax ku garanaysa haddii nolosha caynkan ayadu ku soo kortay ay waxaan maskaxeeda iyo miirkeeda imaankeeda ka buuxayaan te in isbedel ayaa loo baahan yahay caqligeeda maskaxeeda la kaashato maxaa ku wanaagsan maxaa kuusan maxaa kuu xun maxaa aan kuu xumayna kuu wanaagsan maxaa lagaa doonaya maxaa lagaa doonayn maxaa kaa reeban maxaa ku raacsan waxaan odhan karaa barnaamijka haddii la is yidhaahdo bal balaadhiya oo saafsaafa oo siduu yahay iyo siduu xalku yahay bal wax ka qabta waxay u baahan tahay majlisyo dheer in fara badan laga fadhiisto la shuureeyo la rogrogo
aniga inta yar iga muuqata iyo su'aalihiinii oo aan soo koobay markaan eegay balse way eegyihiin iyaguna waxa isla rogrognay intaa ayay ila egaatay inaan ku soo koobay aan kala baqayo barnaamijku inuu sii dheeraado haddaynu intan wax ka sii badan sii faahfaahino asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidaa iyo kulan dambe insha allah intaa ayaan kasoo gabagabayn doonaa barnaamijkeenii maanta oo aad odhanaysayba talow muu sii yaro wado oo hore ugu sii socdo dhan kasta oo ay laga istaagaba barnaamij aad qiimo fara badan u lahaa waxaana filayaa in ay inoo baxeen meelo fara badan oo marka hore inaga laaqnaa iyo bal isbarbardhigga iyo noloshu si ay saxa ku tahay inaan fahanno bal inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa intaynu kulan dambe iskugu iman doono oo kanoo kale ah hadduu ilaahay idinkeeda leeyahay sidaa iyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu noola kulanne